waxaan aad uga xunnahay maxamed baashe xaaji xasan xukuumadda maanta jirta ee fashilantay ee hantidii ummadda koox yari ay qaadatay ee dadkii soo wada ooteen ee ay bakhtiyayaan in maanta marka uu qof aqoon leh oo dalkan taariikh ku leh uu yidhaahdo war waxaasi ma wanaagsano oo keliya in sabaainta ay leeyihiin inta ay soo diraan la laalaabiyo weliba loo diido in lala kulmo oo raashin loo geeyo oo intaasoo qof oo karaamo leh oo ummadda karaamo ku leh inay soo salaamaan subxaan allah oo waxa uu doonayay u baahan yahay isagoo la leeyahay weliba xanuunada qaarkood buu leeyahay oo dawooyin baa la doonaya in loo geeyo lan yuqbala minhu adeer wax la aqbali karaya maaha waa u sheegaynaa kuwa meesha fadhiya ee mid waliba 10 kalan cruiser gurigiisa dhigtay caruurtoodu Mareykan iyo Malaysia iyo dalalka aad og tahay ee qaarkood jaamacadahoodu sanadkii $60,000 ay yihiin sanadkii oo kaliya ay u joogaan iyadoo inta soo oodatay maanta Somaliland gudaheeda حتى ما أنت تاريخ ذا أي نكوه إنه أي دعادي ما ندوي تسدي بريقة كدعادي إلا أركو نف قاتشونية أو المعرور وصدح بلود شيري هل كيسة قيبو شير كيسة كم إذا كعوري تتكنوا للشو عين كاتهاي إن ما أنت الله يلاحظه وحوي يقف بايلي وحباي نقل الضل الله وحره لن يقبل منه وحلا أقبل كريمه وليست أذركم من أشرته وحين كل شيء وكذا يعني الله ولا قد من يسناس ويضدكم ننجيت كل شيء مشر أذر وملع الله فردي وحلا قد يذي رقي رقها شند اللوجو بشاري إلى هي كتل ما يضدك أرد السماء أنت لقى صوت ملك لا يلاحظه نبي الله هبل سلام نجارسي لهي لي هاي كواسة لقدي ذي أذر وكان مستجاب الدعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيداينه تاريخ ذا كواينه جمعوا الله ضدك مسلمين مركا من بركي سوق تاجن أيوحى وسوقة اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن على رأسه السبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كاسو آخره وحولي كو يدين تليا يالا أو أقبلا انتي وناقي يدين كوه قاملين وركا صف كوري وحفظين صحابي الله يقال سلمان الفارس سلمان منا سلمان أهل البيت سلمان أنه نقمدي وأهل البيت كي يقول رسولك عليه الصلاة والسلام ويستاقي وحلالي وحنو كايرين أما تشربه اسمعوا واطيعوا ما شقينا سي أمير المؤمنين عمر بايابي سلمان مركو يري ولا المحاد والله يدي سداسي يقول دي الشلي درباي يمن كيمد قويال عد بي هايين مسلمين طورنا بعضو قيبسي نوال بحبد باد وديبتي أضغونا ساك هالكنادي سسوه تاكتو اللبات كسود عدي بيقول وحد ليدي مقلا أو إيالا انت تقو نو ديبتي أدنا أدلبا كسود عدي halkee ma garatay maqlayay yeeladu ay ka shaqeynaysaa buu safkii buu sida u eegay subxaanallah qof buu baadhbaadhaya markaasi oo uu isleeyahay Salman al-Farisi ha u jawaab dabeetana wuxuu qumi Cabdulaahi bin Umar Cabdulaahi bin Umar oo xagga dambe istaagan buu istaagay wuxuu war bal walaalka u jawaab dadkii buu ahaa Umar bin Khattab aad u garasho badan muslimiintii nin walba deeyna jimcaha waatan la yiri qofku waa inuu dharkiisa ugu wanaagsan xidhe qof walba wuxuu sitaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin gooy cadaabu sita dabeetana wuxuu war aniga miyaa goo cad oo cusub igu aragtaan maya abahay waa nin dheer goo kaliya kuma filna war goo labaadii uu sitaa waa goo aygi Salman ayaa amiir al-mu'miniin imikaanu garanay go'aan labaad halkaad ka keentay khudbadaada iska wada waa ku yeelinay isaguna iska fariistay Abdullah ibn Umar bin Khattab noo fariistay subhanallah khudbadii sidee bay ku socotay
adeer islaamka gudihiisa waxaa la yeeli waayey oo cumar binu khadaab laga yeeli waayey oo muslimiinta oo dhan abubakar kadib saxaabigii ugu fadliga badnaa ah oo intaasoo xadiis ay ku soo arooreen oo saxiixoo bukhaari iyo muslim ku sugan inuu laba go' iska soo qaato isagoo muslimiinta go' kaliya siiyey oo la yidhi waxba lagaa dhegaysan maayo bal horta jooji khudbadaadi yeelaya waxaas ma shaqaynaysa ya innaga aqoon-yahankeennii baa fashilmay hoggaankeennii baa fashilmay tujaarteennii baa fashilantay culimmadeennii baa ku fashilantay dalkani inuu dal noqdo la wada leeyahay hoggaan toosan hela ninka dhinac ka rara la yidhaha warkadaa hargeysa waxaynu ugu nimid in ka badan 15 kilomitir oo taliskii aynu la dagaalanay ee maxamed siyaad barre uu katay markaynu ku kala tagnay cidi gaar iska qaadatay dhulkan ka hadlaya adeer muxuu yahay per meter square waa $7,200 per meter square meter square ka oo kaliya waa $7,000 dhulkan ka hadlaya guriga kaliya sidaa waa 150 mitir sidaana waa 200 mitir bal adeer imika isku dhufo imisa meter square buu noqonay times 7,000 ku dhufo guriga ugu yar 1.9 million buu noqonay bal intaas 530 guri oo shacabka abal ku dhufo maanta intaas iska daa horumar waxa laaliyo waxa ay wasaaradaha ay dhiseen ee boqolkiiba 50 ay leeyihiin waliba iyada ay nagu caawisay guri kaliya oo maanta hargeysa ku yaala oo nin qaatay oo uu ku qaatay sababta dawladda oo noqonaya 14.8 million ayaa halfkii bay noqonayaan wax laaliyo waxa dhiseen oo dhan idan in la yiraahdo oo aynu qiranno inaynu fashilanay oo aynu u baahanahay aqli iyo cilmi iyo garasho halkii hargeysa oo dhan qaatay Soomaaliland oo dhan ku shubtay wuxuu doonay yeelaya la ogyahay taariikhdiisa yusafiqoon ayaa kun hablood iyo kun hooyo iyo maxay yusafiqoon ayaa durmaanka iyo magaratay nin aad u muslimo ragid diinta fahmay ah Abu al-Hasan ala al-Hasan al-Nadawi subhanallah wa kun 1945 ayuu kitaabka qoray علماء المسلمين كتاب كيابت ماذا خسر العالم بانحداد المسلم ما حد نريد أي أخسارتي مركي لبربريي هجانكي مسلمين كتاب كجيبي سب الله يلا وحكوا شرا حاجة ضمن فقدان الوعي وحول المسلمين لبعضها هيسته إليهن ضد ساحلي إليهن ضد هبسامي وعربتوا أي وجوه رسولنا taladooda marka ay noqoto buuri kii ay tijaabiyeen ee yaqaaneen ee munaafiq ah ee kun goor jabiyay ee inta soo khalad galay waxa u fudud buu yiri inuu si yar oo dib yar talada intuu u fariisto ay sacabka u garaacaan kooda ugu wanaagsan ee la jecel yahay ee wanaaga u ololeeya ee inta badan nafiyo maalba u horay way adag tahay siday u fahmaan ayuu yiri wahada ma yusama fuqdaanu alwa'i dhibaatada muslimiinta haysata taaway adar maxaa Trump haysta Donald Trump waa empire Mareykanku maanta boqortooyadiisu waxay gaadhay bal orodoo imka suuqa tag islaanta 9 jirka guriga marka aad ugu tagto dollarka intay sidaa u masaxdo subhanallah ayay shandad yar oo maasa oo qurux badan bay u sameeyay waay waa maxay sababta وبقرطوية بريكن كمانت سمايستي إن إسلامته إن لها أو سجاشن شركي أي نوت كمريكن كإلاليسو هذا رودا سيجاري لحكون تضوبقول يكونتر مدح أيو ما أنت كسيتا سامسونايت كوسيتو ومدل ببطن كأوتابتا تضبط قاردود ما أنت شراء لا تا إليه والله مدح كلي كفلا إلهي بأود له نك ما أنت أودي سعين كاتها samsonite nuclear-ka intaasoo madax ay ku jiraan sita maalin walow ilaahay soo gooyo 500 oo kun baa hortaagan White House-ka no other anaga madaxweyne loo bati
way aragtideeda kama tarjumayso wargaaladii gaalada ahayd ayaa ka xishootay waxyaalaha qaarkood iska daa inagoo muslimiino nin baa la soo qabtay sida xadiis saxiixi uu tilmaamayo markaasaa waxaa loo keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii muxuu yidhi إني أتوب إلى الحق سبحانه ولا أتوب إلى محمد نقول سوق بتبع لي وارب الورن وأنا نقول إلهي ما نتوبت كيني لكن نكاسي محمد ومتوبت كيني ورسولك إلهي عليه الصلاة والسلام ومسلمين وحالت قال إنه عرف الحق لأهله رسولك بالكلمة داسد وقت شوابيك ورسولك إلهي ومخلوق إلهي أبوركي وقفض قبضنا كلمة يونيكي يري ورنقو إلهي بانو توبت كيني محمد كايدين هو قامني ومن توبت كيني رنبو شاقيبو رسول كوري لقد عرف الحق لأهله حقي إلهي رسمي هابو تلمامي الله وحنا هاون بو شاقي وردايبو رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الإسلام كاوي لا أقبل كرماي هذا وحلي هاي محمد باشا حاجة حسن هلا سيدا waxaan idin sheegayaa war dulmiga la dagaalamo war hayeelina waxyaalaha qaar war in hantida la iibiyo yaani waxa weeye boqolaal sanadood caruurtu ay lahaayeen oo aynu sacabka garaacno laa yuqbal min war xukuumadda waxaan ku waaninaynaa maanta mandatekeedu October ku eegyahay adeer awood uma lihidin wax khilaafsan waxa aynu ku heshay waxaanu ka hadlaynaa markaanu leenahay wax khilaafsan waxaynu ku heshinay waa maxay qodobka shanaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa inoogu taal wax waloo shareecada ka hor imanaya uma yaalaan Soomaaliland waxay ku heshiisay ma aqlan wa shar'an waxaanu leenahay war hadda jinnina وسي سعوتان إير بايدين هذي أضيقاسي تاريخ الصوماليلاند كلها لكن أين أبنى هاي ظروف تمان تكون حيرنا وركداية لبت كداية كون الله هذي نوي قرنيا وحنو كلا هذي نوي قرنيا تذكروا وحنو شيء قلنا ولديك وضلك إلى علينا يا وقت بدن يا هنتي بدن يا عرور بدن أين كله مني حتىنا dulmiga ha ogolaanina dulmiga oo la diidaa ma hadalka oo la dumiyo dulmiga oo la diidaa waxa weeye daalimka in la qabto oo la yiraahdo warkada umada hadmin waxa la ninka aqoonyahanka la sii daayo kuwa kale la midka ah ee runtii dalkan taariikhda kulle iyagana hal ilaaliyo ayaanu leenahay maxaan u daliishanay islaamku wuxuu yaqaanaa qofka qadarkiisa نبى هالكاك صوب قلي يدو صف دير لفرديو وصحابة دي أردن أي مركا حلقة دي بحران شرير بن عبد الله البشري مال وكجل أيواي لأنه دي حلقة دي وحرانتها مركا قف مسلمة أبنى قف كلام مسلمة لما أردنكر رسولك عليه الصلاة والسلام ولن قيمة الله صحابة قيمة كله إهل كينا قيمة كله رسولك درين كيسي بايس بدلي لأنه حاركين صحابي تاجي هاي إن ماشينا حلنت هاي نمكينا آني فاهمين إن مال أبنية نكاضيجا رسولك الله بقى أبو مركز حليه مركز قوي سر قوي هاسو رسولك هاسو صار مركز سوتشين قارت مركز سو قوي سر قاضي النبي عليه الصلاة والسلام سيدا أنتو أدو طوبي أي النبي عليه الصلاة والسلام أطوري فقال اجلس عليه قايغا كفر يسبوري النبي عليه الصلاة والسلام مركز صحابي إلما كسو دريرتي قويبو انتو دب أصول الله بي أيو كسو علي النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت لأقعد رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أني هبوري نم كفر يسنكرا قو رسولك عليه الصلاة والسلام صحابة دي ترين كودي ما سوتشستي نك رسولك وقاو توري تبعت مركزي تفصحوا مركي فهمين قابك رسولك والله هذا أي أبنيين مركزو صوفرست إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه رسولك حيلي
war haddii mid tolkii sharaf ku la idin yimaado qof karaamo leh hadduu idin yimaado fa akrimuuh karaameeya buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waddamada muslimiinta maxaa ka jira hebel karaamada ka qaada oo kaadhka ka guba oo allahuma salli calaa sayidina maxamed dee waxaad arkaysa subxaan allah waxaa la yaab badan ummadda maanta joogta ee aan la hadlayaa waxa weeye wardadii ahaw in badanna waa hadalnay waana hadli doonaa inta ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo dalkan inuu wax noqdo naf iyo maalba horena loogu horay dadka ku qanacsan somalilan inay jirto oo ay joogto aan ahayn dad badan ay ku wada hadleen in ka badan dhowr kun oo qof oo dadkii aanu isku wanaagsanayn ahaa ay ku kala tegeen xagga aragtida dadkii muslimiinta ee badnaa oo ay waa ogtihiin soomaaliya markii ay jirtay wadaadadu meel walba waa iskaga iman jireen mar waloo aanu baxnana 100 su'aalood nalaga weydiiyo sababta aanu somalilan ku taageersannahay laakiin aanu ku qanacsanno aanu qancino waxaanu u sheegaynaa inta maanta taladu ay ku urursan tahay ee aan sharciga u lahayn inta maanta talinaysa maaha intii sharciga u lahayd ee ummaddu ay dooratay waan idiin sheegay war ka daaya dalkaa duminina war sidaa ku wadaan ma aha nabadgelyo ilaalin sidaa ku wadaan waa in laysdilo dadku waa hubaysan yahay dadku waa divisionis dadku waa gobollo dadku waa kala aragti hantidii waa ku kala tagteen taladii waa ku kala tagteen wax walba waa ku kala tagteen ma maantay taagan tahay hebel ma odhan karo waxa weeye waxaasi ma habboona war aragtidaydu ma aha saldhiggaasi inuu ummadda dan u yahay iminkaan idiin sheegaya in badanna waa ka hadalnay dalkan dadka dulmigoodu ina haysto askartaasaa ka mida 500 ku la sii ee maanta gambadho fadhiya isagoo 10 carruura leh laakiin askartii baa koox laga samaystay gaar loo naasnoojiyo oo loo isticmaalo dariiqalda maxaa hebel lagu xidhaya isweydiin maayaan muxuu dembi galay isweydiin maayaan soo laalaabi ya war guri aan hub oolinimo jiro ma shaqaynaysa adeertaas war intii waxaa ka dambaysa waa la isku dilay walan yuqbala minha lana aqbali maayo